fircoon muxuu ahaa wiilashana wuu lay jiray gabdhahana waa gudi jiray gudbada fircooniga hadda Soomaalidu isgudaysay gabdhaha la gudaayo hadda Soomaalidu way ku sheegay waxay ku dhahayaan gudbadii fircooniga ahayd hadda fircoon wixii uu dadka bini'aadanka ku ciqaabi jiray haddaad gabadhaada gudayso fircoon baad ilaah ka dhigay oo iska raacay in dhaqankiisa aad qaatay ruux dhaqankiisa dad qaato wixii uu shirbi jiraa kula fiican gabadha la gudahayo xididada la gurahayo ee la isku toltolahayo ummadii bani Israa'iil la dhihi jiray markuu raggii laayay gabdhihiina ay soo kaceen gabdhihii waxaa la dabac baa geli dabaca ma ka guri wax lagu dabacaba gabadhu ay wax ku dabacdo oo dhan baa laga guray waxa kaliya ummadii hadda waxa suubiya waa Soomaalida qoladii xataa fircoonada ahayd faraaciladii wali way joogaan qoladu fircoon reer ka dhashay reer qibdi baa la yiraahdaa wali way joogaan Masar laakiin gudbadii iyada ahayd isma gudaan iyagu banu Israa'iishii la gudi jiray isma gudaan yaa isku Soomaali kaliya gabadha waa la gudaa sharciga islaamka laakiin waa la suuleeyaa waxa la leeyahay in la guraayo xididada laga guraayo ruuxa dadmadiisii iyo dareenkiisii lacala la dhuminayo gabadha Soomaalida ee fakshin kaba baxda maxaa yeelay baalkii afkii baa laga xidhay wasakh baa lagu reebay wixii loogu talagalay inuu ka soo baxo dhan baa lagu reebay caadadu si fiican ugama timaado maalintay aad guursata laga bilaabay ilaa ay ka duqowdo isbitaal baa taagnaan maalin bay fakshin baad meel ka soo kici oo ka daaweyn xanuunka isagoo dhanna waxay ka qaaday wasakhdii ilaahay ugu talagalay inuu leersado bikaaranimadu ma aha bahalka afka laga xidho bikaaranimadu waxaa weeye xuub gudaha ku yaalla gabadh kastoo nin hortaa aan u tegin ninkeeda horteed aan u tegin marka uu horeeyo habeenka uu horeeyo uu la kulmo xuubka hadduu taabto dhiig baa ka imani gabadh bikaaranimadu waa taas laakiin bikaaranimadu bahalka afka laga xidho ma aha neefta lagu dheji macnaha waxaa weeye alla subxaana watacaala ciqaabta iyada naag badan oo gabadheeda guday ama nin badan oo gabadhiisa la guday oo raalli ka ah ama habar badan oo fara madow oo waxbaa gudi leh ilaahay ciqaabta haddii ruux dhan baa dishay noloshiisa oo dhan baad ku ciyaartay gabadhu way dareenkeeda way ka dareen badan tahay ragga haddaan la gudo ragga hadda Soomaalida qasab baa naagta ilma lagaga dhalaa mooye naag wax rabta oo male maxaa yeelay waa dhufaan oo gebigooda xidhiyi baa laga bixi waranka haddii la tumo wanka haddii la baro bari weyn marka wanka aad ku talagasho waranka inaad gaddo ariga waa la tumaa xidhiyaha laga tumaa si uu cayilo bari weyn ula baxo naagaha Soomaalida bariyaha xaggaa soo wada socdaan maxaa bariyaha keen waa dhufaan waxa la waxay ku dareemi lahaayeen baa laga gooyey oo alla subxaana watacaala ugu talagalay inay wax ku dareemaan marka waa iska dhufaan xoog baad ilma kaga dhali mooyeen damac iyo wax gelaya ma leh gabadhuna waxaa la rabaa sida ay sheegtay culimadu macnaha waxay gabadha damaca leh subaxdii markay soo toosto waxay dabacdaa ruuxa ugu horeeya ee ragay aragtay inay qabsato haddii marka waxaa la yidhaahaa casal istixyaa ushii xishoodka ilaahay ku dhuftaa sidaa daraaddeed bay iska xishootaa gabadhu mooyeen kuwan waxbay dabcaan marka maya waxba ma dabcaan waxbaba ma dabcaan waxaa weeye waa kuwa qabana way ku rafaadeen iyaguna gabadhu waxaa la rabaa ninka inay dabac geliso laakiin hadda gabadha Soomaalida ninka dabac gelin waayo waa dhufaan waxba ma kala ogabe